madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni saddexdii bilood ee la soo dhaafay wuxuu dowladda federaalka la lahaa xiriir dhow wuxuuna u muuqday mid la yimid siyaasad ka duwan tii Cabdiweli Gaas kula dhaqmi jiray dowladda federaalka. Cabdiweli Gaas wuxuu ahaa madaxweynaha golaha iskaashiga maamul goboleedyada dalka, siyaasad ahaanna wuxuu aad uga soo horjeeday dowladda uu hogaamiyay madaxweyne Farmaajo, wuxuuna xiriir dhow la lahaa Axmed Madoobe iyo Xaaf. haddaba guuldaradii Cabdiweli Gaas ee doorashadii Puntland ayaa niyad-jab siyaasadeed ku riday Axmed Madoobe iyo Xaaf oo markii dambe labadaba wadahadal aysan ku qanacsaneen la galay dowladda federaalka, balse booqashadii Deni ee Imaaraadka uu ku tagay bishan 8 ayaa isbeddel weyn ku keentay xiriirka Deni iyo dowladda federaalka, wuxuuna Nairobi kula kulmay Axmed Madoobe iyo Xaaf si boorka looga jafo golaha iskaashiga maamul goboleedyada uuna u buuxiyo booska Cabdiweli Gaas. shir jaraa'id uu Deni ku qabtay magaalada Garowe ayuu ku dhaleelay dowladda federaalka daawasho wacan. waxaa iyagana kulan gaargaara iyo mid guudba aan wada yeelanay madaxweynayaasha Jubbaland Axmed Madoobe iyo madaxweynaha Galmudug Master Axmed Xaaf labadoodaba waxaan ka wada hadalnay arrimaha Soomaaliya iyo xaaladda maanta marayso iyo cakirnaanta ka jirta muddadii laga soo bilaabo bishii 9aad ee 2018 shirarkii joogtada ah ay u qabsoomi jireen dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka federaalka oo baaqday sidii arrimahaas waxa jira iyo aragtiyaha la kala qabana la isku soo dhaweyn lahaa aragti cadna laga qaadan lahaa. runtii dowladaha aan la kulanay ruuxadooda aad bay waxay walwal uga qabeen wada shaqayn la'aanta muuqata ee ka dhex jirta dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka taas oo mugdi gelinaysa mustaqbalka dalka Soomaaliya iyo meesha uu ku socdo. waxaan si cad oo aan leexleex ahayn anagu la wadaagaynay dowladaha lagu tilmaamo partnership waa shuraaka leeyahay ma aha deeq bixiyaal kuwa la yiraahdo kaliya. dowladda waxaa jira processka Soomaaliya ee dowladeeda lagu dhisaayo ka ah partner oo dhaqaale iyo waqti badan ku bixiya in ay iyaguna ay arintaas si dhow la socdaan. sidoo kale markii aan isla jeexjeexnay xaaladaha jira runtii waxa soo baxay concerno ama aragtiyo kala duwan oo dhinacyo badan ka imaanaya. Puntland haddii aan soo koobno waxaan caawa shirkan ka hor ruuxadeeda kulan yeelanay aniga madaxweyne ku-xigeenka iyo xubno ka socda aqalka sare ee Puntland u matala aqalka sare oo ugu horeeyay madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Faroole Juurale iyo rag fara badan oo kale oo la socday oo runtii labadaas oday oo ka soo jeeda khabiiradii xilligii ku meel gaarka laga baxay iyo dastuurkan sameyntiisa dood dheer iyo wada falanqeyn ayaa waxaan ka yeelanay xaaladda dalka iyo meeshuu marayo iyo Puntland iyo waxa la gudbo. waxyaabaha dhabta ay soo baxay waxa weeye oo aan rabo inaan la wadaago dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba sida dad badan oo Soomaaliyeed ay walwal ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya meesha isku socoto ayaa Puntland waxay walwal ka qabtaa habka wada shaqeynta iyo dalka sida loo maamulayo. runtii khataraha u weyn ee Puntland dareemayso waxa kamid ah in nidaamkii iyo dastuurkii lagu heshiiyay la gacan bidixaynayo oo wadadii loo baahnaa uu ku socon. waxaa nooga muuqata khatar abuuri karta in dalku uu nidaamka siyaasiga ee hadda jira oo caqabad aan hadhow la xalin karin yeesho. dowladda Puntland iyo dad badan oo Soomaaliyeed waxay garowsan yihiin marxaladda hadda lagu jiro oo waxa afqalaad loogu yeero state building process waa hab raac ama hab socodka dalka dib loogu dhisayo. waxaan garowsanahay inaan la gaarin meeshii ugu sareysay ee qaanuunadii loo baahnaa dalkan in lagu dhaqo maadaama dastuurka hadda uu jiro qabi qoraal. sidoo kale dastuurku wuxuu leeyahay mabaadi' asaasi lagu heshiiyay oo ugu horeyso dalku inuu nidaam federaal qaato oo maartay lagu xukumo. waxa halka ka soo baxaysa dalka habka hadda lagu wado inuusan ahayn habkii lagu heshiiyay ama habka dastuurka ku meel gaarka hadda aan wadano inuu caqabad ku yahay. waxa kale oo soo baxday dhaliil dadka nala wadaaga ama partnerka dowladaha walaalaha iyo saaxiibada aan nahay iyagana faham darro inay ka jirto habkii ay noola shaqeyn lahaayeen. 2012 iyo xilligii ka horeysay ilaa 2004 waxa nidaamka dalkan sababay in dowlad federaal dhalato in magaala madaxda la tago in dowlado
xubnaha ka ay dhismaan in dalka dastuurku meel gaar loo sameeyo in waxyaabahaas waxa sababayay nidaam la oran jiray bottom up approach oo in hoos laga soo dhiso state walba gaarkiisa baahiyihiisa loo soo xaliyo dawladnimadiisa loo dhiso dawladda dhexena ay sidaa ku dhisanta ayay ahayd waxa noo muuqatay habka ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway taasna ay keentay dawladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxadeeda ku guul dareysatay inay amnigii magaalada muqdisho maan xataa maka mukarrama culays badan ka haysano aan ognahay culayskaas faraha badan oo haysto wuxuu ilowsiiyey meelihii kale waxa ka jira taas marka waxa dhacday dawladdii inay u muuqato dawlad aanan war u haynin ama aan la jaan qaadin ama la socon dareenada maamulada kale ka jira waxa soo baxay in dawladdii dhexe iyo caalamkii ay ku qancisay shaqadu inay iyadu leedahay ay iska wadato dalkii loo sameeyay waxa la yiraahdo national development plan oo aysan goboladu aysan war fiican ka hayn maalinta marmar intii la yimaado waraysi aan koobnayn intii la yeesho la wado waxa kale oo soo baxay waxyaabo la yiraahdo tubaha oo sectors ah oo iyadana loogu talagalay in caalamkii loogu gudbiyo baahidaas inay Soomaali qabto deeqahaas markay yimaadaan meel ay ku baxaan la garan leeyahay shirarka isla xisaabtankana ay ka soo baxaan ribooro bilaayin dollar oo Soomaali loogu deeqo dadka Soomaaliyeed ay waxay ka arkaanaysan jireen arintaas waxay shaki gelisay dadka Soomaaliyeed annaguna haddaan nahay maamulka Puntland waxaan wakiil ka nahay dadka reer Puntland waxa khasab nagu ah wixii aan aragnay inaan la wadaagno si ay iyagu ruuxadooda ay mowqifka ku haboon u qaataan runtii Puntland muddadii hadda ay jirtay waxa ay dood badan ka qabtaa nidaamka dakhliga ama hawlaha soo gala deeqaha dalka soo gala loo qaybiyo oo runtii ay doon weyn ku qabto waxa dhaca hab aysan raalli ka ahayn shaqadeeda oo maalinta ugu dambaysa mararka qaarkood ilaa shirka soo qaybgala la qaybsaday la qoondeeyay go'aanada ka soo baxayna la sii qoray intaan shirka la tigin taasoo runtii caqabad ku noqotay dalkii inuu wada socdo waxa kamid ah awoodaha dalka uu leeyahay in lagu takrifalay ee ahaa isku dheelitirka iyo waxwad qaybsiga awoodaha habka dalku maanta u dhisan yahay ama hal dawladaha xubnaha ka noqoto ama hab beeleedba ha noqoto maadaama weli 4.5 kan laga gudbiyay waxaan dhaliil weyn ka qabnay sidii loo maareeyay gudoomiyihii bangiga dhexe ee Soomaaliya oo runtii ah xadgudub habka nidaamka wax qaybsiga muuqda oo haddana process runtii aad u khaldan oo in la sheego habboon lagu sameeyay